iyo waalida maxaa idin dhexeeya jannadu xaggee bay kaa jirtaa iyo waalida wax idin dhexeeya waalida caadiga yaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة ديال وبرخد نورية وإذا كلا سؤال جودها مجالات للصعانات وقرينا دي أتشانل كل سبتين سبسكرايب ده سيدو كلنا جمال الكفر كل سؤال مغلس قلبته وحان سؤال ويديني إن شعبك كله خن مجالات للصعانات واحد كوار كده وانت في العلنة كل دول قار كاقصية يغار كايا بيبا حتى بس يا نولد شوكتو لو الصبي لا وشوال نقرن مقعد المقعد عصام شعبله عصام ku soo dhaw Nuuriye Media ku dhawaad ba maasanta waxa jirta su'aalo kaftan oo aan weydiinayna shacabka magaalada horta sidee baad u aragtaa waa soo dhaweynaa walaalaha isku dayna insha Allah wixii Ilaahay naga garsiyo aad filanaysaa in waxaan ka garto in aan ka jawaabo insha Allah waayay su'aasha kaftanka waxay ku dhacaysaa waxaad sheegaysaa waxa adiga iyo waalidii idin dhaxeeya wax aniga iyo waalida noo dhaxeeya waa aqliga wax aniga waalida noo dhaxeeya waxaani waalida noo dhaxeeya wuxuu noqonayaa dii aqliga aan isaga dheerahay qofka waalana aan dheerahay qofka waalana aqli ma leh aqliga sida aqligu laakiin aqligu leeyahay laakiin se aqligu sax hadii uu san lahayn mid sax ma laha marka mid nooceeyu leeyahay marka aqli isku wuxuu leeyahay aqli isku dhaxyaasan oo aqligu ku fikiraya anu waxaan dheerahay waxa weeyaan anu desan su'aasha qabtid aqliga saliimka ayaan ku fikirayo weeyaan haba intaas isleeyahay dheer way hadda ma sano iyo diin isugu jiro aan weydiinayna shacabka magaalada sidee baad horta waragtaa aad iyo aad baa soo dhaweynaya soo dhaweynaya kawar aad baa soo dhaweynaya barasha dadka ay waayeen waayay su'aashan adiga ku weydiinna waxa weeye waxaad sheegaysaa halkee ka jirtaa naartu daakhiro ها naarta ka hor meel tagaa in qof aan dhiman ma tagaa qofan dhiman ma tagaa marka la dhinto ma naarti alaabta loo kala sheegaya hay'adu meel bay ku salaysan tahay wax walba location bay leeyahay yadu xageey ka jirtaa tajaxiim jirta meel ka jirta wasal tajaxiim wayadii una naartu wax jirta aakhiro anu naar iibka taagan waa garanayo midabka taagan garan laakiin aakhiro baan isleeyahay naar jirta way aad baa mahadsantahay ugu horreyn magacaagu waxa weeye Jabarti Maxamed Cabdilaahi Jabarti oo ku soo dhaweeyay Nuuriye Media waa ku soo dhawahay waayay waxa jirta su'aalo kaftan iyo diin isugu jira oo aan weydiinay dadka magaalada su'aashan ku weydiin waxa ku dhacaysaa waxaad sheegaysaa wax adiga iyo waalideedin dhaxeeya waxa weeye miirqabka sidee macnaha ma faahfaahin maxaa tiri su'aashu maxay sheegaysaa wax adiga iyo waalida in dhaxeeya ما قف والله والد لفتي دي وين اسكتي wax adiga iyo waalida in dhaxeeya abadjoog caafimaadka ha way aad baa ma ogoran magacaaga Ahmed Haji Bitaw Ahmed Maxamed Ahmed oo ku soo dhaweeyay Nuuriye Media ya ku soo dhawaala way waxa jirta su'aalo aan weydiinayna shacabka hore su'aal ma lagu weydiin aniga ya ma lagu weydiin way quraan ma dhigata xagee marasa jiska koobaad oo la sublaa jiska koobaad way waxa sheegaysaa wax inta noo shaqeyn ka hadhay واو مسكحة هذا ما وقرن مقعد عباس علي حسن عباس oo ku soo dhaweeyay Nuuriye Media waa ku dhawaan macna way waxa jirta su'aalo kaftan oo aan weydiinay dadka magaalada sidee horta waragtaa waa soo dhaweynaa ku faraxsan soo dhaweynaa way hore su'aalo ma uga qayb qaadatay magaalada mayu kuma qaadan way su'aal baan ku weydiinayna waa saddex su'aalood waa laba diiniya iyo mid kaftana diinta isku fiicantii waayay waxaad noo sheegaysaa halkee ka jirtaa naartu meel location ma sheegade halkee ka jirtaa naartu loo gaari ma dhawaade xageey ka jirtaa macnaha ila waa baratay Soomaaliga diinta way
xagee waad ka maqashay inay dhahdeen naartu way kaa jirto dee meesha xun bay jirtaa inta meelaha dee inta shirka iga jirtaa kaa jirtaa meel kale ma jirto inta shirka iga jirtaa aan shirka ahayn ay ugu horreyn magacaaga magacayga waxaa la yidhaha cabdinajiib xasan axmed cabdinajiib oo kusoo dhaweeye nuuriye media waan dhawey walaalaad aad baad mahadsanta waaye waxaa jirta su'aalo kaftana iyo diin isugu jira oo aan weydiinaynay dadka magaalada horta sidee baad aragtaa ina waa soo dhawanaya wallahi waa loo baahan yahay dadku inay wax kala faa'iideystaan aqoonta la kala faa'iideysto su'aalu marada diin yihiin waa aqoon dadkuna waa wada baahan yahay laga faa'iideysto waaye marka aad baan soo dhawanaya waaye su'aashan ku weydiinna waxay ku dhahaysaa naartu halkee bay kaa jirtaa naartu halkee bay kaa jirtaa muuqti xaadirkan horta ma baan dhimanay maxaad iga weydiinaysaa naartu way sheegtay akhriga jirta hoos bay jirtaa hoos ya naartu waa ilan toddoba dhul baynu ku taaganahay Soomaaliya waa kee uu ka jiray inaan wallahi taa hadeer garan maayo reality ma ka hadlo inaan reality ka hadlo Soomaaliya taa garan maayo laakiin de ma aan dhiman wali waa noolahay naartu xaqiiqi xigtaa laakiin de inaad cilmi ahaan soo inuu ogaano ma ya la wan garan inaan taa culimo sheekh Cabdinaasir Fir ugu horreyn magacaaga Saciid Faarac Diin Saciid oo ku soo dhaweeyay Nuuriye Media oo ku dhawaan Nuuriye Media waayahay waxaa jirta su'aalo diin iyo kaftan isugu jira oo aan weydiinaynay dadka magaalada su'aashan adiga ku weydiin waxa ku dhahaysaa horta diinta isku tiin inta soo wacana waayahay su'aashan adiga ku weydiin waxa weeye maxay yihiin gabdhaha jannada ku dhex nool ee la yiraahdo xurul ayn gabdhaha waa gabdho Ilaahay u diyaariyay dadka jannada sidee lagu diyaariyay waa xurul ayn ma waa ku sheegay waa xurul ayn Soomaaliya waxa la yiraahdaa gabdho ayaa jira jannada ku nool oo la dhaho xurul ayn maxay yihiin iyaga laftooda waa gabdho Ilaahay u diyaariyay ummadda jannada Ilaahay baa u diyaariyay laakiin de waxa Ilaahay inuu diyaariyo waa ogre laakiin iyaga rabna waxay yihiin iyaga Ilaahay baa garanaya ma inuu garanayo hadda ma ugu horreyn magacaaga hinda ku soo dhaweeyay Nuuriye Media waan dhawey walaala way waxa jirta su'aalo kaftana oo diin isugu jira oo aan weydiinayna shacabka magaalada horta sidee baad aragtaa waan soo dhaweynayaa de way su'aashan ku weydiinna waxay ku dhahaysaa jannadu xagee bay kaa jirtaa yaa jannadu xagee kaa jirtaa hooyada cageeda hoosteeda iga jirta yaa cagaha hoosteeda hooyada cageeda hoosteeda iga jirta hooyada cageeda hoosteeda ayay kaaga jirtaa maxaa kale isku day yaa cibaadana way iga jirtaa in Ilaahay u cibaadaysto way adba ma ugu horreyn magacaaga Jaafar Abdirashiid Jaafar oo ku soo dhaweeyay Nuuriye Media oo is dhawa way waxa jirta su'aalo aan weydiinay dadka magaalada su'aashan ku weydiinna waxa weeye qiyaasta halka maalin ee qiyaame intee bay lagtaa ma garanaya ma garanaysi iska day yar soo dhaweey qiyaas waxa la eegta tira ahaanta tiradii baa ku yaraa tiradii baan garanayay tirada waxa soo dhaweey tirada isku tira far 20 way aad ma ugu horreyn magaca Xamda Cabdullaahi walaala Xamda ku soo dhaweeyay Nuuriye Media waan dhawahay walaala waayay waxa jirta su'aalo kaftana iyo diin isugu jira oo aan weydiinaynay dadka magaalada su'aashan ku weydiinna waxa weeye waxaad sheegaysaa waa kuma wiilasha jannada lagu waariyey wiilasha jannada lagu waariyey asxaab mise wiilal ma garana walaala ugu horreyn magacaaga Axmed Cabdisalaam Maleeya Axmed oo ku soo dhaweeyay Nuuriye Media Nuuriye Media waa ku dhawahay way waxa jirta su'aalo kaftana iyo diin isugu jiray oo aan weydiinayna shacabka magaalada su'aasha ku weydiin waxa ku dhahaysaa halkee bay kaa jirtaa naartu jannadu waxay iga jirtaa camalkayga wanaagsan camalkaaga laakiin meel kale kama jirto meel kale igama jirto way jirtaa isku day way jirtaa isku day jannadu iyadu xageeyta ku taala xagee ku taala aakhiro ma ku taala laakiin meel kale kuma taala meel kale kuma taala hada camalka wanaagsan ay ku walna aakhiro meesha ku taala lafteeda la doonayay inaad magaceedii noo sheegto ma jannadu waxay ku jirtaa waxay ku taala aakhiro ma way aad ma san horeen magacaaga
cabdinaasir baa la dhahaa. cabdinaasir oo ku soo dhowow nuuriye mini. nuuriye mini waa dhowahay salaamaya. waxaa jirtay su'aalo kaftan oo aan weydiinayna shacabka magaalada. waa laba su'aalood oo diiniya iyo su'aal kaftana. labada saddex su'aalood teebaan ku weydiinaa. diiniga kaftanka weydii. kaftanka waayahay kaftanka waxaa ku dhahaysaa waxaad sheegaysaa wax adiga iyo waalida idin dhexeeya. wax adiga iyo waalida idin dhexeeya. idin dhexeeya waa caqliga. ma caqliga waa garta caqliga soo qofkuna wax ku gartaba ya amiir qabka ama qofka waa laan caqli ma leh ya caqli ma leh caqli ma laha ilaahay wuu ka qaaday xiski waa garta marka taas ay idin dhexaysa wax kale ma isdhiiray taasaan dhehnaano waxaan caqliga in ma dheerin aad baa mahadsantahay